هيدا روتين ready بسم الله الرحمن الرحيم aniga ku hadlaya magaca saxaafadda guud ee Soomaaliya maanta barnaamijkan sugnad wuxuu yahay inaan ka hadalno xariga wariye Maxamed Ibraahim Bulbul oo xiran 18 maalmood sidaan wada ognahay Bulbul wuxuu ka mid ahaa saxaafadda Muqdisho kuwooda ugu cad wuxuu ahaa nin saxafiya oo aan ka been sheegin muhiimadda saxaafadda maanta oo 18 maalmood u tahay wuxuu ku xiran yahay xabsida dawladda waxaan codsanaynaa ugu horeyntii in uu xorriyadiisa helo qofka muwaadinka ahi 48 saac ka badan inuu xabsi ku jiro xaq uma lahan wuxuu xaq u leeyahay in maxkamad la geeyo haddii uu qaldan yahay la yiraahdo qaladkaas uu galay ninkaas oo maxkamadda soo taago haddii uu san qaldaleen inuu xorriyadiisa helo balse inuu iska xirnaado 18 maalmood ayadoon waxba laga sheegin xarigiisa oo la dhihin dambigaas uu leeyahay khaladkaas uu galay oo xabsigiisa kaga jiro taas waxay u muuqataa in cadaalad darro tahay dalkaani wuxuu u dumay asalkiisu cadaalad darro cadaaladu waa tiirka dalku ku tagan yahay qofku inuu iska xirnaado muwaadinka ama saxafi ha ahaado ama ha ahaado qof shacab xaq uma laha 4 saac ka badan maalmahan dambe xataa waxaan soo gaarisay inuu xanuunsan yahay oo xabsi ku jiro xataa eheladiisa booqashada lagu dhibay taasna ma aha mid aan ka sugaynay dalka 2023 lagu jiraa maanta in dalku meesha horumar ku ciilaha in saxaafadda dib loogu jeesto waxay ka mid tahay dhaqamada lagu yaqaan xukuumadaha dictatorka in saxaafadda iyo shacabka iyo caburiyaan waxaan leenahay saxaafaddu dami ma ahan haddii uu qalad galay wariye Bulbul hala soo kaxeeyo maxkamadda hala keeno qaladkaas uu galay mataqaan dambigaas lagu haystaa hala xukumo wuxuu cadaalad ka helo leeyahay laakiin inuu iska xirnaado maalin kasta 18 casho inuu iska xirnaado cidna laga hadlin caafimaadkiisa laga warhayn eelkiisa ay booqan waayeen taasi ma ahmed cadaalada waxaan ka codsanayaa laamaha ammaanka waxaan ka codsanayaa dhammaan mataqaana xukuumadda uu sareeyo wasaaruhu waxaan ka codsanayaa madaxweynaha in la soo farageliyo oo cadaalad helo wariye Maxamed Ibraahim Bulbul xaq uma laha inuu xabsiga ka jiro 18 maalmood ayadoon meel la keenin oo ma santiin